Fartuun dhoolacadaynteedu ma ahan mid sax ah. Qisadan xanuunka badan ila arag. Halkani waa deersame iyo anigoo ah.Ahmed Xasan. Fartuun waa gabadhan idiin muuqata. Ninkeedii ayaa soo wacay Fartuun waxa uuna u sheegay inuu shil gaadhi galay misna u dhaftar joogo oon la soo wici karin loona iman karin xilligaasna gaadhi wadis ma ay aqoonin qurbahana way ku cusbayd kadibna talkiiba wuu dansaday. Intaas kadib aad ayay ugu walwashay wax ayna arrintii u sheegtay saaxiibteed oo guriga la joogtay. Aroosna ahayd oo ay arooskeeda wax ka qaban qaabinaysay waxa ay ku tiri ninkaygii oo aabe iyo hooyaba ii ahaa ayaa shil galay talkiisiina wuu dansan yahay waxa ay ku tiri dhib malahane caloosha adkayso ilaankaaga waan jeclahaya isaar caawana waa arooskaygii iraaxa adiga iyo carruurtaaduba. Intaasi kadib maxaa dhacay markii la tegay goobtii arooska? Waxaa dhacay arooskiiba waxaa soo galay caruuskii oo ah Fartuun ninkeedii oo iyada saaxiibteed aroos ku ahba yaab iyo amakaag. Buuq badan kadib gabadhii iyo ciyaalkii ayaa la kaxeeyey waxaana loo celiyey gurigii iyadoo ooyeysa oo ukaadan waa ku dhacay. Ugu dambayna iyadoo xaaladii xanuunka ay ka faday ku sugan ayuu furay. Fartuun waxaa isugu darsamay furiin, masayr iyo khiyaano. Hadda way ka soo kabanaysaa qisadii xanuunka badnayd balse weli qalbigeeda waxaa ka holcaya dhibaatadii loo geystay. Ileen naag saaxiib ma gasho naagta ninka ka xoogtay waa saaxiibteedii qaaliga ahayd.